ballaadhan oo si heer qaran loo saagaasimay ayaa ka dhacday degmada Ceegaaga taas oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay boqor Cabdilaahi Axmed Cali oo hadda ka hor qolo mucaarad ay sheegtay inay warqad xilka laga xayuubiyo ay soo galiyeen barta internetka taas oo ah waxba kama jiraan ayaa waxa si heer qaran xaflad lagu qabtay bartamaha degmada Ceegaaga taas oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan iyagu degmada Ceegaaga waxaana soo dhaweynta boqor Cabdilaahi Axmed Cali ka qayb qaadanayay bulshada qaybaheeda kala gadisan waxaana suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee degmada Ceegaaga soo buuxdhaafiyay boqolaal dadweyne oo ruuxaya boodhar iyo calaamadaha ay ku taageerayaan boqor Cabdilaahi Axmed Dabagooye waxaana ugu dambeyntii meel fagaara ka hadlay dhammaan bulsho weyntii sida buuxda u taageersaneed boqor Cabdilaahi Axmed Cali isla markaasna soo dhaweeyay boqorka waxayna sheegeen in boqorka aysan xilka ka qaadi karin qolo mucaarad ah isla markaasna uu yahay boqor buuxa ay dooratay dhammaan beesha dhulbahante aysan dooran hayaag oo kaliya xafladda lagu taageerayo boqor Cabdilaahi Axmed Cali ayaa sidoo kale waxa ayna dad badan isaga yimaadeen magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadkaas iyagu dhamaantoodba si buuxda u soo dhaweeyay isla markaasna taageersanaa boqor Cabdilaahi Axmed Cali oo hadda ka hor ay sheegeen koox mucaarad ah in xilkii laga xayuubiyay waxayna si buuxda ugu soo bandhigeen dareenkooda bartamaha magaalada Ceegaag kuwaas oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku taageerayaan boqor Cabdilaahi Axmed Cali iyo waliba boodhar ay ku xardhan yihiin taageerada lixaad kale oo hayaan boqor Cabdilaahi Axmed Cali salaan kadib magacaygu waa Maxamed Cabdi Samatar Faanto waxaanu ka nimid Buuhoodle dadka halkan jooga anigu aan ka yimid halkan odayaasha fadhiya waa odayaashii magaalada odayaasha halkan fadhiya waa kuwii magaalada waxaa iyaguna jooga odayaal Laascaanood ka yimid dhammaantaya waxaanu u nimi bannaanka isugu soo baxnay rag iyo dumar inaannu muujinno dareenka aanu ka qabno arrintii ka dhacday maalintii dhoweed magaaladan magaalo u dhow oo la yidhaahdo Libowga oo baaqa laga sameeyey baaqaas oo ahaa boqor Cabdilaahi Axmed Dabagooye aanu kalsoonidii kala noqonnay ay odayaashu yidhaahdeen arrintaas oo aanu ka qabno inay tahay arrin dembi aan laga galay beesha hayaag oo dhan waayo beesha hayaag iskuma ogeyn kama aanay tashan meel isuguma iman kama aanay shirin horay baa ay u dhacday warqad internetka la soo geliyay 130 qof ku qoran tahay markii aanu xogaal u noqonayna 13 qof ay ka og tahay warqadaas oo sheegaysay waxa halka lagaga hadlay oo kale hadal lamida waanu ka hadalnay saxaafad baanu Buuhoodle ka qabanay waxaanu sheegnay in hayaag isugu yimaado shir boqorka xitaa waanu u yeedhnado waanu alcaamino waa lagu xisaabtamayaa kaalay baanu ku niri waayo boqorku waa boqorkii ummadan isagana annaga xukumo shacabka xukuma isaguna gudoonka iyagu leeyahay horeyna u lahaa imikana u leeyahay maalintaana waanu sheegnay inaan kalsooni lagala noqon karin oo warqad meel laga soo qoray aan lagala noqon karin maantana waanu sheegnay 4 nin oo guri 5 nin oo guri la isugu geeyay inaanay kalsooni kala noqon karin boqor Cabdilaahi Axmed Dabagooye iyo kii kale hayaag doortaba hadduu caawa dhinto mid kale hayaag doorto sidii loo doortay si aan ahayn annagu ma garanayno waa qodobka labaad war isin may dhicin maanta ka horow isin lay warqad la yiraahdo waa lagu riti adduunka kama dhicin daaroon kama dhicin dhulbahante kama dhicin cid ay ka dhacday isin warqad inta la soo qoro internetka la soo geliyo la yiraahdo waanu kala noqon kalsoonidii waa wax aad u ceeb horeyna waanu ugala hadalay nimanka soo qoray ee dabada ka soo qoray anigu waan u sheegay nimanka aad baan ula hadlay xaaladayadu iyaguna waa inay hadal hayaan waa la sheegay faanto muxuu naga rabaa wax kale ma oran waxa ku dalka qaxoontaad kaga maqantihiin qaxoontii hayaagna ma xukuntaan naga daaya maamulka aadna maamulaysaa ayaanu ku nidhi imikana waanu leena kuma ay aamusin hadalkii ma qancin war hadday xalaal doonayaan hayaag baabanu shir isugu yaadhay haddii qalad jiraan la iska saxabaanu nidhi haddii boqorku qaldan waa iska saxayna haddaynu sii kari weyna hayaag baa tashanaya markaa ka tashanaya war ninka kelmaddaasi anfici weyd ee marba 4 nin guri la gelaya anigu ma garanayo wuxuu doonay
ورانكم ما قرنا يوحدوني وحان كلا ونمي تاين تاسان كذا بحيا وحان كلا ونمي إن أنكر اللي قلنا ميديا ياش هذا الكخلت كان لقى يا مانول ومضى إسلام كان دولتكم ميلقارك خاتم استيت بوتلان إن الله يتيدوا البعثة وحكاية هي دولة الصومالية بإنها نكرر اللي قلنا ميديا ياش خلتك يا بنت يا وحى أنترين يا وحى نشيس كلجوا هين لقلنا يا الله قاعد إن نكرر اللي قلنا تصدحات وحانو لنا حدي الله يسخلافه halka waxaan ku yar kala yar hadlayaa siyaasadda hoggaanka siyaasadda Khaatuma State horta marka hore dhulbahanta waxba u dhistay Khaatuma State buu dhistay waa la isku raacay waanagii boqorkayga ku canaananaynay maalinta hore ilaa Khaatuma dhistay garowana waa tagtay kaale naga qanci waxaad ka doontay waxaanu leenahay waxaanu ognahay siyaasaddii Khaatuma State hadday isna tahayna in isna gaari jeebka ku qaateen waxaanu ognahay hadday siyaasad tahayna inay siyaasiyiin gaari ku qaateen jeeb waxaanu ognahay in isnadii iyo siyaasiyiintii reer Buuhoodle ay bannaanka ka taagan yihiin lama ay u qaybsan yihiin marka siyaasiyiintii reer Buuhoodle iyo isnadii Buuhoodle waxay u qaybsan yihiin nin aamusan oo wuxuu ku hadla garan la siyaasadda nimanku jeebka ku sitaan ma arka oo ka baqaya dhulbahantaha reer Buuhoodle jibaysan ka baqaya inaanu jibada la jiidno waayo annaga day Khaatuma taageersan waxaanu leenahay kuwa hadlayna in loo isticmaalo divide and root wax la yiraahdo oo nin walba qabiilkiisa la yiraahdo hebel oo kalsoonida kala noqo amarka iyagii buu diiday oo idinku aad wuxuu yeedhisaan war ma suuroobayso Buuhoodlana lagu soo raro khasaaraha iyo dhibaatada iyo xabadii Khaatuma maalintii loo fariistay la dhisay ka bilaabatay baa wali ka bilaaban in reer Buuhoodle siyaasadda bannaanka ka taagnaado Khaatuma State xaq uma leh kana taagnaan mayno haddii la doonayo Khaatuma State inaanu dhis sida aynu u qaadanay u dhisano hal qaybsada siyaasadeeda nimanka jeebka ku haysta siyaasadeedana miiska saaray haddii boqor Cabdilaahi siyaasadda halka ka arko nin siyaasi noqday ama Maxamuud Xaaji Cumar Cabay ka arkay halka oo nin siyaasi noqday ya dadka lama eedeeyo oo qabiilka la isku jeediyo gudihiisa waxa weeye siyaasadda miiska dhiga miiska saara doorka ay leeyihiin isnadayada iyo odayaashayada haddaan laga siin waanu kala noqonaynaa kalsoonida annaga ugu horeeyna beesha ayaag markaan maay haddaan isnadayada iyo odayaashayada reer Buuhoodle laga siin doorka in garaad Cabdilaahi laga siin door ku leeyahay Suldaan Siciid laga siin garaad Ashir Saalax laga siin boqor Cabdilaahi Axmed Dabagooye laga siin garaad Saleeman Buraale laga siin Maxamuud Xaaji Cumar Cabay laga siin Saleeman Ciise Axmed Kaar oo loo yaqaano hogaamiyaha ahaa jabhadda SSC oo ahayd inuu dawladda markii la dhisay hayo labada sano ugu horeysa hogaamiye kastoo jabhadeed la ay sharci tahay inuu dawladda ugu horeysa la dhisayo waa la inqilaabay annaga wax ka inqilaabnay haddii lagu sii wada inqilaabkii iyo dhibtii wuxuu dhismi maayaan anana SSC baanu samaysanaynaa SSC baanu ku noqonaynaa jabhadda yadii baanu ku noqonaynaa idinkuna Khaatuma aad la tagaysaan nugaal la qabanaysaan iyo soo haddii dhulbaanta yahay siyaasadda miiska la saaray iyada intaasaan kale laakiin waxaan idin sheegay maanta waanu nahay Khaatuma shalayna waanu nahay laakiin hadday siyaasaddu soo socoto berri ahaan mayno meesha ayaag marana weliga dhulbaanta kama hadhin haddaanu kala noqonnana wallaahi dhulbaanta reer Buuhoodle uu kala noqonaya taana intaasaan ka oranaya waxaan soo raacay waxaan le gabagabadii hadalkaan le ilaahay inta laga boqo waxaan u soo noqonayaa nimanka hayaag ee qurbaha jooga marba nin gaari kaga soo qaadaya marna kaga soo qaadaya wanaagsan marna kaga soo qaaday haddii boqor nimanka odayaasha kelmad baan kaga leexanaya waxaan kaga leexanaya markaad lahaydaan kalsooni baanu kala noqonnay boqorka oo aydan kala noqon karin oo aanan taladayada ahayn oo aydanna weydiin qaar cuqaal iyo qaar aan cuqaal ahaynba waad leedihi kuwa cuqaashaahow horta yaad idinku kala tashateen inaad boqortinimada kala noqotaan kalsoonida inaad kala noqotaan boqorka yaa kala tashatay isagana waxaad ku eedaynayseen nalama tashado dee idinba cid laba idaan tashado marka ama waa laydinkala wada noqonaya ama waa laydinkala wada noqonayaa kalsoonida oo kulligiinba lama tashataan
isagaana idinku dambaynaya wallaahi intiina kale marka lagala noqda isaga yaanu isaga ka tashanayna haddaannu idin dhaliilno haddii aad runta doonaysaan nin wax taray cuqaashiinna idinkuma jiro nin dhibaato waxaan ahayn ku qaybsanayna idinkuma jiro ha isla soo taagina marba hadal meele hayaag baannu shir ugu yeedhnay hayaag baannu nahay taladaannu idinla leenahay kuwa odayaasha ahowna dee naga mid baaba tira meelaad ka ordisaan garan mayno kuwa cuqaasha lagu sheegayo war haddaad cuqaaltiin hayaag isugu yeedha halkaa ha isugu yimaado ha tashado ninkii khalad loo haya bannaanka ha la soo dhiga ama isin ha noqdo ama caaqil ha noqdo ha la soo dhiga halkaa ninkii aadlana hay-addiisa dhakadaa laga saaro ninkii la sixi karana ha la soxo ninkaan la sixi karana hayaaga ka tashado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dadka islaamka meel kasta uu joogo magacay waa maxamuud abadan xaaji xuseen naaliis bagmada baa la yidhaahaa annagu halka waxaan u nimi sidaa uu ka soo sheekeeyey maxamed cabdi sabatar waxaana soo kicisay hadalkaa khaldan ee lagu sameeyey isinka ama qabaa'ilka qaranka taladiisii lagu weeraray baanu halka annaguna waxaanu marka hore ummadda islaamka u sheegaynaa iyo dunida caalamkao dhan arrin aanu ka tashanay uusan ahayn wax jiran uusan ahayn waxaan anigu la hadlayaa nin cabdi ciise la yidhaah cabdi ciise waxaan ahaa la taliyihiis waxaan ku idhi fiitooda hayaagiyo in adigu wax yeedhi sameeya yaa lagu yeedhi wuxuu noqday in loo yeedho wuxuu noqday dabagunug maadaama uu dabagunug noqday aniga dabagunug iga dhigi maayo cabdi ciise halkaasaan ka jooga waxaan ka joogaa nimanka qurbaha waxaan leeyahay adeero waxma lama tartaan waad la dhibaataysaan dhaliin iyo waayeelba waan salaamaya waxaan ku salaamayaa boqolka iyo 14 quraanka yaan ku salaamay aniga oo xasan gaas ku tala waxaan uga gudbayaa ujeedada bacad baynu tuban oo ujeedada laga raaco meesha loo yiri anugu ragga soo jibaaxay gaadiidka ku joogayba ee ka yimid ilaa raarka deegaanka kana waa deegaankii weynaa ee qabiilka inta badan anigu korka un baan kala socdaa ma degan warku suu igu soo gaaray ilaa aan waacinaya sida tan imanka la isugu yimid kaantay qabiilku wuxuu lahaa boqor buu lahaa ilaahay u xukumay aan nin kale u xukumay iyagana u dirado ay keensadeen way caleema saarteen waa ku caana shubteen waa lagu soo dhoweeyey haddii ilaahay kuu roon yahay mid meel laga soo gaayad celiyana maaha dad kalena looguma soo gaayad celiyo qabiilka burburay waa burburkii qabiilkuna dhammaan wuu u dhammaa uma kala maqnayn nin dibad jira maaha kii dibad jirana isgaadhsiin baa jirto laguma kala maqna sidaa waxaan u leeyahay warku wuxuu noogu yimid boqorkii niman baa yidhi xilkii waannu ka qaaday sidii karbaash yaroo awr laga rogay waannu ka qaaday ka culus inta tidhi waa ka qaaday wuu ka culus yahay qabiilku markuu noqdo inuu isu yimaado oo taa is weydiiyo markaa waa meelaan waxbaba joogin in laga qaado haddii la is weydiiyo waa meelaan waxba joogin hadda qabiilku dhan markuu isugu yimaado waa laga tashanayaa taa laakiin waa koox yar oo degaan ceelkan u ah oo isbiirsata ah oo anigu halkaa waxba kala saari maaya kooxun baan ka soo qaaday kooxdu waa ku niyootay way ku seexatay way ku kacday dadka qaarna waa gagabisay qaarna ma gagabin aniga ma gagabin kooxdu weligay waa ogaa weligay inay qabiilka kula jirto xasiloonay la'aan iyo qalaanqal iyo nabadgelyo la'aan weligay anigu kulle intaan waxna soo maqlay waxna aan joogay kooxda waa untiiba waxaan xasuustay ergeyga Soomaaliya loo soo diray mahiige raadiya saxaafad uu ka soo daayay habeen dhaweyd bandhigista Soomaaliya wixii ka degay lahayd buu yiri koox yar bi ka degay laad koox yar
وكلا كانا ومقعيدي وبحيي أيه كدق لهذي والدبد يقربها مالغبان بلاد هاي سراكيل بلاد هاي وسيري بلاد هاي وقبليال بلاد هاي وحي بلاد هاي دبد شري انت كدق لهذي وصو عيارته برنامج وقرات سداسي وقرات اسكارسينا واحد ما الله واحد تضعف الفرمان أوفر الرومان وأرمها الله ورضنا وليهم كوحنا ساعة الغلط كوحنا الفرمان إلى أن نصوغ قبلنا وقرنا إنها وأن فرط كفرنا ولي بقى بينه دقمش كوحنا يطلع ساسا كده وكوحنا أول شيء وكل كوحنا قبائل كل حاجة كوا قبل ليالي اللي هنا كرم شيء كوا نيري لي كوا كوفيد بعليال وجورجورنا يلي هنا وحا هاي ما كشغل ما يفرها نجي ماي dadka uu saaw kala xaraasiyo uu kala saar oo mar been meel tubi oo halka xaqiiq taasoo ku shabahay wala maqal wala wada ogya qabiilkii mana xambaro lagu ciyaaray oo niman aan garanayna ku ciyaaray oo aanu qaban karnaa dibigooda basida ma